Barasaabka gobolka Sogdheer Maxamuud Cali Salaamaan Ramaax ayaa saaka kormeer indhaydhayna ku soo maray qaar ka mid ah iskuulada ay ka socdaan imtixaamaadka shahaadiga fasalada afraad iyo sideedaad isagoona kormeerkiisaasi ka hadlaya waxa uu fariin u diray barasaabku dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaanu yiri waxaan maanta soo kormeernay dugsiyo qaar ka mid ah dugsiyada gobolka ee imtixaanadu ka socdaan hawshuna si wanaagsan bay u socotaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa dhalinyarada imtixaanka gelaysa in ilaahay uu ku guuleeyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada bahda saxaafadda iyo waalidiinta carruurta dhashayba iyo iskuulada oo si qurux badan ardayda oo si aad iyo aad u wanaagsan u qaadatay awaamirtii waa arkayseen moobiladii kalaas kaliya moobil lagu la jiray ma jirin kalaas kaliya oo waraaqi dhex taalay ma jirin fariina runtii waxaan u dirayaa iskuulada private-ka dhibta ugu badan ee taagan waxa weeyaan iskuulada private-ka oo dhiiri gelin iyo ka soo horjeeda awaamirtii xukuumadda ee khaasatan wasaaradda taasina waxaan leeyahay war markay iskuuladu ay dhammaanayaan ma hadda xilligu tartanka bilaabi lahayd tartanku waxa weeyaan ay carruurta waxa baraysan ku tartantaan aanay noqonin la dhiiri geliyo xumaan in la dhiiri geliyo iyo mustaqbalkii oo la madoobeeyo ilmaha dadweynaha waxaan u sheegayaa waalidiintu waa inay ogaadaan runtii wasaaraddu tallaabo aad iyo aad u wanaagsan bay qaaday boqolkiiba 90 uu hirgalay ardaydooda guryahooda ka imanaysa inaanay iskuul hebel baa imtixaanadii ugu sarreeyay aanay ku qiimeeyeen inay ku qiimeeyaan ardayga waxbarashadiisa oo carruurtooda ay la socdaan intaan imtixaanaadka la gaadhin waa Cabdi Axmed Yuusuf Saab TV magaalada Burco.